madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo Muuse Biixi ay ku kulmeen Addis Ababa kadibna uu Muuse Biixi uu kala garan waayey gaadhigiisii iyo gaadhigii farmaajo markii dambena laga war helay in ay magarasa ay yidhaaheen waxaan ku kulmaynaa Hargeysa ku kulmaynaa marka dhacdooyinka noocaas oo kala dhacdooyinka baraarujinaya dhalinyartan run ahaantii brainwashka lagu sameeyey madaxa laga qabsaday maxamed dheer soo dhawow ها ولا الوان بهاتسنت هاي آدي آد بانكو سلاميا adiga iyo teamka halkan space keenoo qaban qaabiya iyo inta dhageysanaysa dhamaantiina salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadaan wanaagsan waan dhawahay walaal aad baan idin salaamayaa waynu bilaaban doonaa markaad tiraahdo inoo bilow maxamedow aad baad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa caawa inuu barnaamijkii inoo hagaago codka qaybtii hore waxaad mooday inay naga yara googa'aysay walow aynu inteedii badnayd aynu ka faa'iidaysanay waxba inooma hadhin kolley rabadaan wanaagsan baan ku leeyahay adiga iyo asxaabta kale ina dhegeysanaysaba ku soo dhawow oo halkii inooga sii anbaqaad insha allah waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay I hope caawa inaynu si fiican si maqli doono googo iyuu ka bixi doono runtii horta habeenkii dhaweyto hadalka intiisa badan waynu ka fargaraynay waxaan samayn doonaa inaan si kooban ugu soo u revise ugu sameeyo summary si wixii kale su'aalo ugu yimaadaan habeenkaa dhaweyto waxaan ka hadalay waxay ahayd sida title-ku sheegayo Somaliland horta ictiraafka run ma u doonaysaa oo aynu kaga jawaabnay maya cadeymaheedina aynu soo dhignay Somaliland fursad in la ictiraafo ah oo ay haysato intay leeg tahay oo aynu kaga jawaabnay fursadaasi inay fursad aan jirin tahay hadday jirtana Soomaaliya iyo Muqdisho iyo in Soomaaliya ku heshiisay inay kala tagto kaga xiran arrinka ku saabsan haddii waxaynu kalo maalinta dhaweyto ka jawaabnay su'aasha ahayd haddii aan Somaliland ictiraaf loo raadinin maxaa midnimo looga shaqayn waayey iyadana waynu ka jawaabnay marka arrimahaas baan imikana yaro kormari doonaa kow arrinka ku saabsan ictiraaf ma la raadiyey waxay runtii inaan ictiraaf la raadin cadeymaheedu aad iyo aad bay u badan yihiin ilaa haddana aan ictiraaf la raadinin oo xataa ka Ethiopia ee la sheegayo uu yahay wax fake ah oo la rabo dhulkeena in lagu qaato laakiin aan waxba ka jirin waayo ictiraaf oo hal dal bixiyo iyo ictiraaf 10 dal bixiyaan xataa hadday dawladaha waaweyn yihiin dal laguma ictiraafo sidaas kagamana mid noqdo golayaasha caalamiga ah ee United Nations ka mid yahay ee shuruucda caalamiga ah ay ku ilaalinayso sidaa lagama mid noqdo taasi waa taa oo ictiraaf horena looma raadin hadda kan la sheegayana waa fake inaan hore loo raadinin cadeymaha aan keenay waxa kamid ahaa wadanka UK oo ah wadamada ugu dhow xagga ama taageero ama sympathy ama magaranaysa ku dhawaansho amaba xataa dee wadan wax badan Somaliland geliyay oo wax badan la qabtay oo la xijeclo kale inaan weligii ictiraaf la weydiisan arrintaasna dee madaxda wadankan ayaa afkooda aan ka qaadnay waxaan idinka warramay in aan shir ka dhacay magaalada Sheffield oo MPyo badan oo dhowr ah ay ka soo qayb galeen oo Somaliland ilaa London isaga yimi ka soo qayb galeen markii shirki dhamaaday nin kamida MPyadii oo waliba kamida MPyada gaarka u ah group Somaliland taageera kamid ah uu yiri dadka shirkan qaban qaabiyay waxaan rabaa inaan gaar idin la hadlo kadibna uu la galay qolka waxa ka soo qayb galay oo dadkii soo galay kamid ahaa TV-ga Somaliland ee la yiraahdo TV-ga qaranka MPga wuxuu waxaan doonaynaa in arrin gaar ah idin sheego waan arkaa TV-gii baa wadataan laakiin waxba imikana ha iska joogo TV-gu runtaan idin sheegayaa hadduu doonaysaan duubta TV-guna maalintaa uu duubay wuxuu yiri waxan aad wadaan ee aadna weydiinaysaan ee ah Somaliland hala ictiraafo
dawladdiinu nama weydiin weligeed idinka iyo dawladdiinu ina isku afku hadashaan baan idin kula talinayaa xaqiiqatan yani dadkii hadalka ku dhagay hadal sidaas oo clear ah buu nagu yiri xilligii Siilaanyay ahayd dadkii dhageysanaya caawina qaarin dhageysanayaan waa laga yaabaa ma aha arin de qarsoodi ah waa arin uu ninka MB-ga ah ee Soomaaliland taageera markuu arkay dawladda iyo shacabku inay kala laba wadahayaan uu yiri arrinkiina waxaan kula talinaynaa isku afku hadashaan taas waxay ahayd cadayn itiraafka aan Ingiriis la weydiinin cid kale la weydiiyayna ma jirto Somaliland ama British Somaliland qaybtii la oran jiray cid itiraaf ka qaadatay xornimadu Ingiriis bay ahayd haddaan Ingiriis ba lagu oran wixii aad nasiisay baan la soo noqonay ma Afrikaan baa loo sheegayaa waa waxaan macna de samaynaynin itiraafka aan Ingiriis la weydiin cid la weydiiyo kale ma jirto waxa kale oo arrimaha anigu aanu soo taagnaa kamid ahaa xilliyadaas de dadku Ingiriiska degan community-ga ahi ay markay arkeen wax itiraaf wada iyo de ay iyagu is abaabuleen oo council-ladooda de waan Somaliland baan itiraafnay iyo arrimo noocaas ay ka diyaarinayeen iyadoo la og yahay inaanay de council siyaasadda rimadeed shaqo ku lahayn dawladna itiraafin haddana waxay ahayd arrin de community-gu ku madadaalanayay qolada dalka joogtaana runtii ay si uga faa'iideysanayeen oo ay dadka ku sii sooxinayeen arrimahaas markay socdeen ayaa waa iska repeat information waa intii maalintii horena aan idin sheegay magaalada London qayb kamida ayaa iyaduna councilkeedii wuxuu yiri waxaanu itiraafeynaa oo dadkii halka deganaa gaar ahaan gabadh xildhibaana oo reer Somaliland ay ka soo shaqaysay Amina Cali la yiraahdo ay ka soo shaqaysay in councilkaasina balde ay iyaguna yiraahdaan waan idin itiraafnay hawshaasi markii ay socotay ayaa waxa yimid oo ka soo qayb galay madax Somaliland ka timi oo wasiirka arrimaha dibadda uu kamid yahay Saad Cali Shire inantaas xildhibaanka ah ayaa xildhibaano ay golaha deegaanka ku wada jiraan iyo qaar ay xisbiga ku wada jiraan waxay u sheegeen waa sidii iyadu ay sheegtay in ay ula diyaar yihiin inay dawladahoodii ilaa 3 dawladood ugu yaraan ay inagala shaqayn karaan inay aan kala shaqaynayna bay ku yiraahdeen inay idin itiraafaan waanan arrintaa waan dhamayn karnaa dawladdiina nala xiriidho oo aan isku xidhno inantu arrinkii xildhibaanku Saad bay u sheegtay wasiirka wuxuu wasiirku completely wuxuu leer casbu u shiday imika maaha u kaadib uu aaminay arrinta halka ku jooji inantii oo yaaban baa ila soo hadashay aniguna de waxyaabo kale oo ka yaabanaayo kuwan kamid ahaayeenba way jireen balaaminay waxyaabo badan baa la yaab leh arrinkaas aynu de sida uu ku yiri uu iskaga daamar hadii dawlad kala shaqaysaba dawladihii kale aan lahaynin de arrinkaas khasab buu ku istaagayaa marka runtii arrimahaasi waxay kamid ahaayeen arrimo de community-gu ay arrimaha markay dawladda intaas oo sanadood wax haba yaraatay meel ama itiraaf ama dhaqdhaqaaqeedu uu ka socdaba la waayay waxyaabihii community-gu ay runtii sameynayeen ay waliba dawladdu bologareynayso markaasi iyadoo dhinacna ka tusaysa in xafladahan de aan macnaha badan lahayn ka soo qayb galayso oo ay itiraaf raadinayso dhinacna ka dhigaysa waliba waxa intaa dheeraa cid kasta oo arrimahaas oo kale ka shaqaysa oo hadda waa heerka councilka iska symbolic ah ee aan macnaha badan itiraaf ka keenaynin cid kasta oo ka shaqaysay oo run ahayd waa la niyad jabinayay oo waxa lagu sameynayay in ciddii waxan ka soo shaqaysay dawladda Somaliland isku dayday inay ma garanaysaay ay ka dulboodo oo ay niyad jabiso oo dad kale oo arrinka ama aan kala shaqaynin ama iyaga ay aan ahayn kaalinta koowaad ahayn ay buunbuuniso baa la sameynayo dadka waa la niyad jabinayay qaarkood madax Somaliland oo council-ladii Bristol oo kale wasiirka arrimaha dibadda oo markaa ahaa Maxamed Biixi Yoonis oo London jooga baana u tigin
oo ka cudur daartay marka waxaad arkaysay in xataa niyad jabin ay ku jirtay arrimahaas arrimaha kale ee anigu shakhsiyan aan u soo taagnaa waxaa ka mid ahaa in aan anigu qabanqaabiyey shir high profile ahaa runtii oo rag madaxa oo ingiriisi igala shaqeeyeen madax badan oo ingiriisana kasoo qayb galeen oo European MBA ka mid yihiin MBA kale oo UK ah ka mid yihiin aqoonyahan badan oo reer Somaliland oo meelo badan kala degan kasoo qayb galeen magaalooyin badan gudaha dalkana ay ka yimaadeen Faysal Cali Waraabe iyo Adna dad aan kasii xasuusto ujeedaduna ay ahayd bal in aan gunta aan soo taabano arrinkan aan dhinacna u soconaynin dadku ma garanaysa ay leeyihiin inuu daaqadu soo saaran yahay runtii shirkaasi conclusionkii oo runtii nin aanu saaxiib ahayn oo consultant siyaasi ah oo aad u wadankan de ragga laga ixtiraama ahaa baa facilitate gareynayay shirkana dee aan la kaashaday runtii oo ila qabanqaabiyey xilligaas marka shirkaas wixii ka soo baxay iyo madaxdii naga cudur daaratay researchadii iyo macluumaadkii ay noo soo direen iyo kuwii ka soo qayb galay wixii ay golaha keeneen iyo feedbackgoodii markii la isku daray legally Somaliland iyo Soomaaliya inay laba gobol oo Soomaaliyeed oo midna uu haystay Ingiriis midna haystay Talyaani oo intay xornimo qaateen hal dawlad wada dhistay bay ahaayeen voluntarily isku biiray oo wax ay kala qorteenna aanay jirin oo voluntary ma garanaysa unionkaas ana waxba la kala qoran ee laba gobol oo Soomaaliyeed xoroobay oo imika wax Somaliland li ay sharciyan tiraahdo dib baan ula soo noqonay oo u dhisnaa oo ma garanaysa de umadu lahayd oo la yiraahdo waxaasaa jiray oo hebel baa ka madaxweynaha baarlamaanku kanu ahaa oo calanku kanu ahaa oo Soomaali oo iyaguna hebel madaxweyne u yahay oo calankoodu kan yahay oo xilliga xornimo qaadatay oo wax noocaas oo la isku daray ma jirin marka runtii arrinka qura halka ka soo baxayna wuxuu ahaa markaan isku soo wixii oo dhan isugu soo legally wax reclaim lagu sameeyo oo meesha ku jira isaguna inaanu jirin hadduu ictiraaf markaasi suuragal ba yahay Soomaaliya inay kala goodo oo ay waqooyi iyo koonfur kala goodo waa haday Soomaaliya ku heshiiso arrinkaasina waa ka golahaasna runtii dee golo xog badan iyo madax badan ay ka soo qayb gashay ayuu runtii ahaa isagana xogta noocaasihi ay taalay waxa runtii iyaduna haddaba isweydiin leh ictiraafkan maxaa loo dooni waayey intaas oo dawladood oo isbedeshay sida maanta dawladda sheegay madaxweynaha qura ee wax ictiraaf raadin u eg ku talaabsaday wuxuu hadaa riyaal kaahin oo African Union ka xiriir la sameeyay bal in fact finding mission la soo diro oo arrinkaasina ilaa iyo hadda waxa qura la hayo weeye waxa aad maqashay ee ku saabsan wadan hebel baanu tagnay iyo wadan hebel baanu tagnay dhammaantood de bal idinku aqliga bini aadanka ictiraafka aan Ingiriiskii xornimadaba ay ka qaateen aanay weydiin ee lagu oranayo Guinea baan weydiisanay Guinea Conakry baan weydiisanay waad garanaysaa Guinea waxa loo tagay cid kasta oo macluumaad haysa ama wadamada la tagay haysa way ogtahay in mashaariic iyo kambaniyo loo tagay macdan iyo waxyaabo noocaas oo de corruption oo waxayna sidii umada khayraadkeeda lagu dhici lahaa inay tahay way ictiraaf xagga inaga xigaabaan jirinba arrimahaas marka waa sida marka runtii madaxweynayaashan Soomaaliya soo maray midnimada may nabcayn marka laga reebo Muuse Biixi oo ay ku caddahay in uu yahay ama u shaqeynayay qaab kale oo ah Somaliland Soomaaliyana laga jaro ictiraafna aan loo raadinin ultimate goalkiisuna uu sida hadda cadaatay isaga iyo cidda ku hoos qarsoon wadanka kala goysay uu yahay in Ethiopia waqooyiga Soomaaliya lagu daro madaxweynayaashan kale ictiraafka fursad ay ku raadiyaan may haysanin
oo Siilaanyo iyo Cabdiraxmaan Tuur iyo raggaasi marka aad eegto dee rag inay Soomaali kala goodo aaminsanaaba may ahayn shacabkan la leeyahay shacabaa buuqayo oo la qancinayaana kooxdan kala go'a ka dambeysay ee Muuse hogaamiyo ee madaxweyne walba kalarka ka laalaaday ee lafaha tuurta ku sidatay ee madaxweynaha sirada xagga Soomaaliya eeg ama wada hadal halala galo ama waxa lagu heshiiyo xabaalaha u soo qodaysay fursad ba aan siinaynin runtii teamkaasi ahaayeen markii ay talada yimaadeenna dee inaanu midnimo isagu u jeedin dee ilaa madaxweynenimada lagu wareejiyey oo markii uu Hargeysa yimi dee teamkiisii ay runtii arrinkaasi ay kansaleen marka ujeedaduna ay ahayd taymka socota ee ah in badda iyo dhulka iyo gobolada waqooyi Ethiopia lagu daro xogo badan oo dadka Soomaalidu research aad badan bay sameynayaan wax fara badan ba heshiiskan Muuse uu hadda la soo galay Abiy Ahmed uu iftiimiyey research aad badan baa socda oo aqoonyahanka Soomaaliyeed koona ilaa koonamaha waqooyiga oo Soomaali oo dhan ay runtii arrintaasi baaritaan ku hayso damaceeduna iyo waxa ka dambeeyayna maalinta ka dambaysa way sii muuqanayaan marka ictiraafna lama doonaynin sheekada socotayna wuxuun bay ahayd 30 sano in Soomaalidana la yiraahdo waa cadow oo xabaalo isku wada area ku yaalo maalinba mid la helayo la oranayo xabaal wadareed baa la soo helay oo haddana mid kale la soo helay oo haddana waa tan oo Soomaali la isku nacsiinayo iyo in la yiraahdo Ethiopia aynu walaalanahay Oromo aynu walaalanahay oo ku soo gabagabowday in la yiraahdo dadka waqooyi degan gebigoodaaba Oromo aba oo ilaa dee madax dhaqameedkoodii aynu ogeyn oo ay Hargeysa yimaadeen oo Oromadii aynu dee marka horeba waddan haysatay ee Soomaalida inoo sheeganaysay iyo kuwii cusbaayeen af Soomaaliga ba aqoonin ay deeysa soo dhaweynayeen oo ay lahaayeen dhulkan iyo baddan iyo intanba waynu way inaga dhaxaysaa halkan idinka u suldaana marka horta mashruuca inagu socdaa ka weeye ictiraaf la inoogu maqan yahay oo Soomaaliland ay leeyihiin ku maqan yahayna ma jiro xaqiiqatanna ictiraaf waynu haysanaa innaga bilaayo kale ina heshay oo dadaan Soomaali ahayn oo ina afduubay baa ina haysta oo dalkeena doonayay in Ethiopia lagu daro laakiin dalkeenu ictiraaf wuu haystaa calankii Hargeysa laga taagay 26 June baa United Nations ka bambanaya oo wax kasta oo ictiraaf kaaga xiran ku ah oo aad ku gaaraysa oo aad ku helaysa hadday tahay ganacsi iyo hadday tahay inaad adduunyada ganacsi sharciya oo liisanale oo de financial system iyo bangiyo dunida xiriir la yeelan kara wixii oo dhami way inoo diyaar kan marna Gini laga doonayo marna Addis Ababa laga doonayo aan runta ahayn waa maaweelo waxa la rabaa in Soomaalina la isnacsiyo aanay dawlad u dhismin waddankeedana sidaasi de dawlad kale inagu aynu qaadato generationada soo socda ee aan maanta dhalanna aynu u sii diyaarino inay 2050 kama de muddo kadib inay xornimo doon noqdaan waayo runtii waxaad cidda taariikhda akhrida arkaysaa cid waddan kasta ama meel fog ba hadaanad eegin Soomaali dawladaha ay xornimada ka qaadatay dhammaantood heshiis bay ku soo galeen iyo dekedan baan isticmaalayaa iyo berberaan Ingiriis heshiis baynu la galnay waliba saan lagaga saxeexay oo ah in dee uu meesha uu dekedaasna inala isticmaalo waan idin gumaysanayaa ma ahayn iyo xornimo hadhow u baahan doontaa Djibouti la mid bay ahayd Soomaaliya la mid bay ahayd mid walba heshiis baa lagu soo galay marka cidda maanta wada heshiis baynu Ethiopia saldi ku siinaynaa waa cid doonaysa inay ubadkeenu xornimo doon noqdaan oo waliba dawlad nagas dhoorkooda ah oo saldhigyadeedii ciidanka ee badda iyo kuwii dhulku isu muuqdaan ay dhexda u galaan doonaysa weeyaan waa arrin aan laga fiirsanin waa arrin loo kasayo
laakiin cidda taageeraysa ee Soomaalida ah ee aan iyagu de ahayn Etoobiyaanka laynagu dhex beeray ee Soomaaliga ee arrinkaa loo qarinayaa kamuu fiirsanin arrinkaa laga fiirsado runtii waxaan anigu markaa ku soo gabagabeynayaa inaynu laba mashruuc si fiican bay u soo baxeen Soomaali in la isnacsiinayo iyo in la ina jeclaysiinayo inaynu Ethiopia ka mid noqono dadka reer waqooyi dee waa Oromo oo nasabadoodii iyo sinjigoodii xitaa la raray oo la leeyahay Oromo tihiin arrimahaasina xitaa diiniyan dee arrimo bannaan baanay ahayn kuwa intay Soomaali sheegteen oo qabaa'ilka qaarkood sheegteen haddana doonaya inay wixiiba dadkiiba iyagu dee Oromo u bedelaan wax aynu qaadan karnona ma aha sharci ahaanna waa qalad diin ahaanna waa qalad marka horena inay qabiil aan ahayn sheegtaan khalad bay ahayd imikana inay kuwii Soomaalida ahaa Oromo ku sheegaan khalad weeye oo ay nasabadooda bedelaan xaqna uma laha hadday dadka soo dhex galeen oo ay la degeen oo weliba ay qolooyinkoodii la sheegteen xaq uguma laha mu'aamarada intan leeg iyo cadaawadda intan leeg inay ku dhex haystaan oo ay ku dhex fuliyaan uma laha Soomaalina waxaan leeyahay hadday waqooyi joogaan iyo hadday koonfurba joogaanba dadkan aanu ka hadlayno waxaan wada waddanka kala goynaya aan Soomaalida ahayn iyo kuwii Soomaalida ahaa la kala garan maayo af Soomaali bay ku wada hadlaan hadday rabaan waddankay ku wada dhasheen ama iyagoo carruuraba qaarkood la keenay afkii waa la wada bartay qabaa'ilkiina waa la wada barto waa la isla sheeganaya bal horta waxa inoo calaamadaynu ku kala garanaynaa ninka Soomaali nacabna inaanu Soomaali ahayn baynu u aqoonsanaynaa Soomaali dadka nacsiinaya calaamada aynu qabsanno ninka Soomaali nacab inuuna Soomaali ahayn aan ogaano oo taas haynoo noqoto inaynu ma garanaysaa de ku kala garano bal qofka Soomaaliga iyo qofka de sheegatada aynu ku kala garano talabaadna waxa weeye qofka leh dhulka Soomaalida Ethiopia ha qaadato isagana aan ogaanay inaanu Soomaali ahayn oo Ethiopian yahay xitaa hadduu afka sidayna uga hadlaayo labada calaamadood aan isku afgaranno dhulkeenana aan ilaashano dhulkeenana aan difaacano waana ka baxay aad oo mahadsantii